way isweydiinaysaa maxaa ku soo kordhay dagaalkii Iran iyo Israel 4 saac laga joogaa marka muuqaalkan duubayo tan iyo markuu xalay Mareykanka horta weeraray saddexda goobood ee ugu waaweyn ee nuclear-ka xalay markuu weeraray diyaaradaha Mareykanka uu soo kiciyay ee B2 bomberska loo yaqaano oo si toos ah uga soo duulay gobolka Missouri waxay dul mareen qaybtan waxiisa leedahay diyaaradihii xalay horta wuuna qiyaanay Mareykanka hadda anima dhihin adduunka dhanaa qoray saxaafadda qoraysa xitaa New York Times AB Mareykanka markuu xusuumay wax loo yaqaano deception oo ah qiyaano waxay soo daabaceen xalay xitaa ana muuqaalka soo diyaariyay waxay dhaheen diyaaradaha B2 bomberska dhanka Pacifica badda Pacifica kormarayaan waxay u socdaan Guam oo ah Guam wata u jeedaan waa meel Australia u dhow laakiin Mareykan wuxuu ku haysto waa dhul uu Mareykan wuxuu ku haysto Guam meeshaas diyaaradii u socdaan ee xalay anaga naga dhaadhiciyeen aniga laftirkeyga aan soo orday qiyaanada ay qaato muuqaalka soo diyaariyay Mareykan uu nagaad ilaa diyaaradii dhankaas maba aadinba waxay u socdeen dhankan iyo bariga dhexe marka dhageysta qaybtaan xiisa ka leedahay diyaaradaha xalay duqeeyay Iran meelaheeda nuclear-ka duqeeyay waxay dul mareen saddexdan dal oo carab soo dhageysta waxay dul mareen Israel ka saar way dul mareen taas waa caadi isku ogeyn mugta Jordan Sacuudiga iyo Iraq waxa la yiri fasax uma siinin oo uma ogoleen Mareykanka in diyaaradahaas B2 bombers u dul mariyo laakiin Jordan iyo Sacuudiga ilaa diyaaradaha dhowr ay ahaayeen Jordan iyo Sacuudiga seta u dul mareen kadib Iran la tagay kadib ay soo duqeeyeen kadib ay ka soo laabteen oo isla galabtaan waxa la sheegay inay Missouri dib u soo laabteen ay sheegeen diyaaradaha marka sharciga militariga marka la fiiriyo Iran dalalkan diyaaradaha xalay duqeeyay ee soo dul mareen Sacuudiga iyo Jordan horta waa in liiska argosiga ay sheegayso waa inay ku darto yani ma sharciga militariga asaas dhigay waayay hadda 4 saac laga joogaa Iran waxayna tiri xalay hadii hal gantaalo Mareykan ugu soo dhaco dhowr jeer dhahday xitaa madaxdooda dhahay waan argosanaynaa Mareykan meesha ku aragno waa ku burbursanaynaa okay maxum ilaa hadeertan kulli hal gantaal oo dhan Mareykan loo rido anaga ma helo ilaa hadeertan 4 saac laga joogo maanta Iran gantaale soo turtay diyaarada drone soo turtay laakiin intooda badan waxay ku dul dhaceen Israel ku dhaceen oo dhan Mareykan iyo ciidamadiisa meesha joogaan Sacuudiga iyo Kuwait iyo ilaa hadda way nabad qabaan tii kale ee ahayd galabta baarlamaanka Iran oo gabi ahaanba ansixiyay oo isku wada raacay in marinkan Hormuz la xiro oo ah dhul Mareykanku iskaga qaraato Shiina iyo Mareykan iyo Ruushia adduunka meesha ma laakiin Mareykanka meeshaas shidaalka waa isbaara caadi u taal Mareykan isbaara u taal soo adiga liftiga soo fiiri dhaga Hormuzka oo Iran ay ku handad inay xirayso ilaa hadeertan ma aysan xirin GPS jamming iyo waxyaabo noocaas la soo sheegay war sheekada markay meeshaas marayso aniga waxa isleeyahay kulley xiisa leedahay oo dunidii oo dhan waxay indhaha ku haysaa Iran maxay sameyn doontaa oo talaabada xigta maxay tahay kulankan hadda wafdiga caawa Ruushka ka digay maxay la soo laaban doonaan ma laga yaabaase fiiriya qaybta la fikiray xiisa leedahay Ruushka in uu sameeyo tii Asad uu sameeyay 2015 Bashar al-Assad oo jagada laga tuur rabo 2015 haya tii hadda ma asagoo ninka odaga jagada laga tuur rabo la isugu yimid dhinac walba laga soo galay oo dhulka qaybta caasimadda iyo madaxtooyada bas asagoo heesto Ruush uu ka soo gaaray saas ku badbaaday Bashar al-Assad ma laga yaabaa Iran inay tii oo kale ay sameeyso oo Ruushka gantaaladiisa iyo ciidamadiisa uu Iran dhax keeno taasoo Mareykan iyo Israel dib u dejin doonto maxay la Israel saaka ilaa galabta ilaa caawa weerar ku wada oo xagga cirka ah Iran dhanka galbeed dhanka xitaa saxaab al-Jazeera soo daabeen yani soo qoraysa marka gabagabada waxay tahay horta Iran way dadaashay way iscelisay way dagaalantay gantaal way turtay laakiin saan xal uma ah in xilliga la rabo iska soo weerari karo hawadooda iska soo gali karo ee la iska duqeyn karo oo xulufo dhan ay isugu imaanayso horta saan talo uma ah iyo hubka nuclear-ka in laga ceeshto maxaa talaabo ah oo weyn oo ay qaadi doontaa Mareykanka dagaal toos ah ma la gali doontaa oo duqeyntan iyo Hormuz inay rag ma iska dhigi doontaa rag waa su'aasha meesha taagan marka kulley wixii soo kordho saacadaha soo socda kale ogaan doonaa